بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل مع الأحمد كل شيء دقمة الدينصور سنة كيكون سقال بقول تضباطني شنتي. إسماعيل سقال حبضات قف يقول عضي هدنا عافمات قبو هضلايا وإلهي مهدي مركلة وأرين معجزة بل سيدي قد عضي قورما أيسن أهيد meesha ay ka dhacday oo xabadahaas kooxaan ay kugula dhufteen waa intee 26 bishii July 2008 anigoo maalmaha kamid ah waxaan ka soo baxay degmada Diinsoor waxaan u sii jeeday safar shaqo magaalada Baydhabo 26 bishii July 2008 bay ahayd taariikhda nimankan oo burcadiimeed ah dibkan ii geystay waxaan ka soo baxay magaalada Diinsoor 4 saac subaxnimo markaan u soo jirsaday magaalada Baydhabo 25 kilomitir meel u jirto la yiraahdo goof guduud ayay istaajiyeen saddex nin oo qoriilay ah wajiga u xirxiran mar allaale markii meesha istaajiyeen oo gaarigayga wato gaarigii ani aan watay bay nimankayga xog ku soo raacay gaarigii bay soo dhaxgaleen markay gaarigii soo galeen oo soo igu yiraahdeen meel halkaas kaaga degaynaa gaarigii meesha magaalada Gofguud markii aan ka soo baxay bay istaajiyeen waxay igu yiraahdeen soo deg waan u tagay wajigii bay iska fureen saddex nin oo hubaysan bay ahaayeen kadib waxay igu yiraahdeen walaalo waxaan nahay xarakada al-shabaab baan nahay rag mujaahidiin baan nahay waxaan ka rabnaa ilaahay dartiis inaad nagu geysid tuulada dharqo ee ku taalo magaalada Iidaale meel u dhow markaas aan warbaan ku celiyay waxaan dhahay nimiyo aniga safar dheer baan u socdaa ilaa iyo Baydhabo aan rabaa in hadda sii tago kadib inaan meel kale sii aadan rabay saas daraadeedii waxaan idinka codsanayaa inaad maarkino gaari kale atraastaan oo iska keydisaan waxay igu yiraahdeen maya walaalow ilaahay dartiisii baan maarkino kaaga codsanay gaarigan inaad meesha iyada nagu geysid baan ka rabnaa gaariga waxa ila saarnaa laba wiil oo iga soo raacday magaalada Diinsoor iyo gabar masaafur ayadana maarkino Baydhabo socotay labadii wiil iyo gabadhii masaafurka ahayd baa gaari kale socdaan saaray nimankii waan aaminay maadaama meeshii ay timid ilaahay dartiisii baa nimankii ayaga ahaa oo markaas meesha ilaahay dartiisii baan ku qaaday gabadhii iyo labadii wiil kala gaari kale aan ku daray waxa ila laabtay wiil aniga staafkayga ahaa oo la yiraahdo Maxamed Ibrahim Madeebuurow loo yaqaano ayaan isla jirnay meeshii baan ka laabanay waxaan tagnay tuuladii nimankii ay sheegteen baan geeyay oo dhaqi la dhihi jiray abeenay tuuladaan dhax istaagay baa waxaan dhahay nimiyow dega tuuladii waa joogtaan waatan ugu wax shaki oo igu jiray maysan jirin naftaadii baa duulaan lagu yahay ismaana dhihin dad muslim baan u maleynayay maadaama magaca ilaahay ay meesha ku sheegeen tuuladii dhaxdeedii markaan geeyay waxay igu yiraahdeen niyo tuuladan waxay walaalow dhaafsi geedkaas qurac muuqdana geedka quracna tuulada ilaa iyo wuxuu u jiraa adiga waxaan dhammaan 1 kilomitir geedkii qurac ay sheegteen baan geeyay abeenadii geedkii aan istaajiyay gaariga hoostiisii baa saddexdoodiiba intay degeen baa maxaa la jiray laba qorina dhanka midigta laga soo saaray gaariga ana gacanteeda ku watay gaarigeygii dhanka midigta laba qori baa laga saaray oo madaxeygii dhanka bidixdana qori baa laga saaray saddexdii qoriba maarkino meeshii waxa lagu murmay ku dhuf iyo soo deg iyo maxaa la jiray furaha gaariga keen markaas aan ku yiri warnimiyo see wax u wadaan waa ilaahay dartiisii baan idinku soo qaaday waxaad igu tiraadeen ilaahay dartiis tuuladaas nagu geeyay maxaa dhibaato kale soo ziyaaday hadda qori igu haysaan ma nafteeda rabtaan ma xoolihii rabtaan bal wax ii sheeg deg gaariga wariyaa markuu horeysay deg soo deg dhulka imaaw markaas kadib wax ku sheegayna gaarigii baan damiyay furihii bay qaateen jeebkaygii bay baarteen wax allaale wixii jeebkaygu ku jiray oo dokumentiyaal ah oo watay iyo maxal iyo lacag oo dollar oo jeebkaygu jirtay bay la baxeen laba mobile oo watay bay qaateen markaas kadib baa ay dhigi hay'adda caafimaadka adduunka WHO markino oo qortay markaas ku jiray bay baxsadeen intaas markay bixiyeen kadib baa kii ayaga u weynaa guntigiis wuxuu ka soo furay xarig angari ah oo duuduuban xarigii buu mid kamid ah u dhiibay oo ayagii mid kamid ah intuu u dhiibay qoriga keen yiri wuxuu yiri ninkan gacmaha ka xir wariyaa gacmaha dhiibo maxaa la jiray su'aalaan rabnaa inaan ku weydiino oo su'aalaha afmaal iska weydiiyaa mas gacan baa la iska weydiiyaa baan weydiiyay su'aashaas aan ku celiyay
sharcigeeni baa qaba buu yiri inaan qofka xirno markaas kadib su'aalaan weydiino ma aniga limixray afkiina waxa doontaan igu weydii waa in kaga jawaabay ujeedadiina ii sheega maxaa yeelay qofka muslimkaan inuu iskhiyaameeyo oo qofka bini'aadamka la shirqoolo ma banaano ee wax ii sheega markaan wada murnay intii murunkeeni sii socday baa wiilkii aniga ila socday meel ma arkino maxaa la dhihi jiray oo saddex qori taalo de hal shakhsi waxba kama qaadi karo wiilkii qorina mu wadin adiga bistoolad buu ii waday oo teetee ah wiilkii isla markii uu iska cararay naf baa qabatay habadna ayagana kumaysan ridin targetkooda aniga buu ahaa kadib waxay igu wargeliyeen su'aalo oo niman oo maxaa la dhihi jiray golaha shuurada ayaa ka soo tashtay arrimahan ma soo diray golaha shuurada amarkoodan ku socnaa su'aalaan rabnaa inaan ku weydiino hay su'aal afmaa la iska weydiiyaa masgacan baa la iska weydiiyaa aniga in gacmihii laga xiro waan ka diiday maxaa yeelay meelashi markaas ay igu haysteen zoonkeedii dhowr maalmood ka hor waxaan ku maray nin masaafur ah oo ma arkino maxaa la dhihi jiray socoto ah kismaayo u socdo ay meesha ku bareeyeen oo sidii waliba dil fool xun ay dileen baa meesha ku arkay marka waxaan ogaaday nin walba ay qabtaan gacmaha marka hore dadka ku xiraan markaas kadib markii garbadub qofka loo xiro kadib ayaa tooray lagu qala oo dil fool xuma oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali keenba ummadda ay u geystaan saas daraadeed markii ninkaan xalli xir la yidhi ani aan diiday baa shaki galay nimankan inay ujeedadooda ay tahay inay dilaan kadib waxaan weydiiyey nimanyo aniga ilaahay dartiisa meeshan idinku keenay wal wixii ujeeda ah ama maxaa la dhihi jiray wixii dembi ah oo igu haysataan ii sheega muslimkan inuu iskhiyaameeyay ma ahan haddii aad dil igu talagashay intaan ilaa iyo 30 kilomitir baan wada soconay oo idin soo qaaday maxaa mar hore ii dilo haddaad dil igu talagashay ma wax ii sheegtaan qofka bini'aadam wixii lagu dilo waa loo sheegay ee wax ii sheegay markii kii yaraa wuxuu yidhi saaxib waa lagu tashtay golaha shuurada ayaa go'aan gaartay adig keligaa ma rag badan baa liis ku jiro waxaad tihiin jawaasiis baad tihiin UN baad u shaqaysaan hay-ada UN baad u shaqaysaan saas daraadeed keligaagi ma ahan adduunya waa kaaga dhamaatay waa lagu dilayaa buu ugu wargeliyey markaas waxaan dhahay aniga murtid mihi muslim baan nahay laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah waad igu dilaysaan laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah haddii aad la dagaalsantiin waad dili kartaan baan dhahay ood ka soo horjeedaan laakiin haddii laa ilaaha illa oo kalimatullah hiya al-ulya aad ku socotaan aniga nin muslim baan nahay dilkayga ku fududaanin maxaa la dhihi jiray meeshan maanta maxaa markaa idin soo kaxeeyay ilaahay dartiisa idin ku soo kaxeeyay yaan liigu fududaanin ee saddex arrimood mid ii sameeyaan dhahay oo mid alla mid idin ka daabudaan saddex oo arrimood oo kala ah markuu horeys ilaahay dartiisii baa idin ku soo qaaday ilaahay dartiis nafteeda igu daay muslim baan gaalmay way sidii duur ku tukaday baan qabaay dhaaf ma laga yeelin baa igu yiri mid labaad waxay ahayd oo ka codsay nimankaas ayaga waan cararaya wadanku waa in kaga tagay qofka muslimka waa loo dilaa intaan la dilin kor waa loo digaaya haddii hay'adaha diidintiin ama UN ama qaramada midoobay diidintiin ka soo horjeedaan magaca WHO aad ka soo horjeedaan wadanka dhan baan idin kaga cararaya waxaan dhahay maxalli ilaahay dartiis igu daay waan cararaya wadankan ka baxa lagama yeelin baa leeyahay waxaan dhahay mid u dambeysay oo dadka idinka waaweyn oo idin soo diray oo golaha shuurada aad ku sheegaysaan ii geeyaan nimankaas hadduu ilaahay yiraahdo wax allaale wixii aniga oo dambi oo galay halii cadeeyay bal ii sheegay dambiga aniga idinka galay hay'ad baad u shaqaysaa maanaha guri baa ii geeyay hay'adan waan u shaqeeyaa hay'ad siyaasad ma ahan wax maanta politika aan ku dhex jirna ma jirto waxaan qaabilsanahay oo kaliya ciyaalkan 5 sano ka yar oo talaalka oo EBI program booliyo iyo measles iyo maxaa la jiray itaatana waxaasan qaabilsanahay wax kale mas'uulan ka ay malahana walaalayaalow waa idin baryaayay maxaa la dhihi jiray idaaya ama dadka idinka waaweyn ii geeyo wixii dambi ani aan galay bal halii sheego liigu dilay ilaa maxaa li qof bini'aadam oo dambi asiga markina wax lagu dilay aan aqoonin baan hay maanta waxaad igu haystaan ma garanaye bal ii sheeg waxaa liigu yiri saaxiib intaan oo dhan inaan isla hadalna ayaa dambi nagu kadib al-ultim waxaan ka codsay nimankaas ayaga oo maanta oo iga yeelan baa waxay ahayd oo maalinka qiyaamana ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo la soo istaagi doono waxaan ka codsay salaada casr aan tukanay weysan qabaay salaada casrkii ogolaadana aan tukaday waa iga ogolaan salaada ayada salaada casrkii waan tukaday waa ma arkino salaadii markaan tukaday laba rakac oo casr ayaan soo gaabiyaan tukaday oo ilaahay aan ku baray sujuud aan ku jiro oo ilaahu rabbiyo diintaada aniga dambi kama gal muslim baan ay kuwan maanta tooda ma arkino abuurtay al-shabaab ilaahu shayaadiinta shartooda iga qabo ayo maana maxaa la jiray aan ku qoolay oo qalbiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhiibtay taladeed ilaahay baan ku wareejiyay salaadii markaan salaam noqsaday baa kii ugu horeeyay wuxuu yiri Allahu akbar bi habada ugu horeysay ugu dhuftay habada ugu horeyso ninka soo tuur waxay iga dhacday ajarka iga dhacday boodida
kadib maxaa la dhihi jiray marka waa kulaaday waan istaagay ayagii anoo fiirinayo laa ilaaha ila allah muxamed rasuul war maxaa igu dilaysan anoo leh war maxaa igu dilaysan laa ilaaha illa allah muxamed rasuul anoo la taagan baa saddexdii qori wixii ku jiray dhan baa la igu soo furay xabadaha baaska ilaahay baa iga wareejiyey waxaa igu dhacday marka ugu horeysa faasi 8 xabo oo keliyaal ah ayaa iga dhacday qaarka dambe barida boodida jilibka caloosha gees ka mid ah 9 xabadood baa iga dhacday 9 xabadood markay igu dhacday dhulkan ku dhacay waa suuxay 9 saac iyo rubi maalinimo ahayd dhinaca midigtaan u dhacay waan suuxay way soo dul istaageen ayagoo teleefoonadeeda ay ku hadlayeen ay leeyihiin ninkii murtidka ahaa waa dilnee nafxun baa ku jirta waa dhammaystireynaa gaarigii wadu noo dhex yaala dee ma arkino hal noo soo diro darawlan u baahanahay ayagoo ma arkino ku qaylinayo anoo suuxsan oo hadalkoodana si fiican aan u maqlaayo ayaan marka ayada ah kadib markii suuxintii ku soo yaranaahay adiga 9 saac rubi xabadii markay igu dhacday saacad baan xirnaa markaas ayada oo markii dambana iga furan doonaan saacadiisa tabaa furan doonaan wax ay dhaafi doonaan malaha waa diirita ilaahay subxaanahu wa ta'aala muslim ku diray waaye saacadii intaysan iga saacadii baan fiiriyay 9 saac rubi bay waqti xabada lagu dhuftay 12 saac wax yar dhiman baan soo naahay soo fariistay markaas waxaan ku yiri waryaaban dhahay alaysa ayagoo abay aana gaarigayga saarnaa iyo biyihii gaariga aniga ii saarnaa ayagoo abayo baa waxaan iri war alaysa minkum rajulun rashiidan dhahay hal qof oo aqli la idinkuma jirin miya war waxaad igu dishan ma sheegi kartaan alaysa minkum rajulun rashiid ayadaas quraanka ayaan u dareeriyay 9 saac iyo meeqa idri iyo rubi markii aad soo toostana intaas waa 12 saac intaas quraanka jiifay 9 xabadoodna way kugu taalay oo waad iig bixisay intaas oo dhan caanahaagina way cabayaan dareen intee la eg dadkaas ma diintooda maxaa ku tilmaami lahayd dadkaas ayaga waxaan ku tilmaami lahaa waa dad ma arkino maxaa la dhihi jiray oo muslimka Soomaaliyeed loo soo diray oo maxaa la dhihi jiray burcadi waagi hore oo isbaarooyinka u tiilay wadanka qabiilka waa nimankii si xaq jir waa qabiilkii waagi la soo dili jiray waa nimankii si xaq jiro waa niman waxaan dhihi lahaa oo khawaarij ah say ku cadahay maxaa yeelay diinta islaamka ma ogolo qof muslim ah oo laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah oo naf muslim aan hore u dilin ama asagoo maxaa la dhihi jiray hore u soo guursaday zina aan lagu qabanin oo afar markhaati oo ma arkin oo la taagneen ama diinta islaamka uusan ka bixin qof muslima dilkiisa laguma dhiirin karo nimankaas ayaga ah muslimka gaalnimada ku xugmay ayaga ayaa waxaan dhihi in ayaga gaala ah maxaa yeelay muslim aniga kuma tilmaami karo maxaa yeelay caanahaygii iyo biyahaygii bay cabaayeen markaan soo naahay oon dhahay alaysa minkum rajulun rashiid adigoo soo laabanayo waan ka xumahay in waraysi noocan oo kala ah aan qaado balse ummadda Soomaaliyeed inay ogaato waa wax muhiim ah marka adigoo sii wadaaya waad soo naaxday xilli 12 saac iyo baro kaleeta ayay ahayd caanihii cabayeen kadib maxaa dhacay adigoo sii aan qaadaya caanihii markay cabeen ba aniga markaan hadlay oo kelmadii ay igu maqleen ba kii ayagu yaraaba ii soo dirin orod naga aamusi baa la yiri ninkaas hal hab madax ku soo dhufo asigoo qorigii la cararay uu yimid wariyaa saaxiib yiri waa seexday amarkii waa qaatay dhinaca midigtan u seexday dhanka bidixda oo dhafoorkayga madaxayga dhigteeda korkeeda ayuu qoriga aakaha ahaa u watay ayuu saaray markaasuu qorigii anoo laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulkaan isku qabtay xabadii ugu horeysay qorigii waa qabsay waa dhici weysay xabadii uu ka bixiyay mid labaada qoriga mar labaad hadana qaatay madaxu iga saaray xabadii waa u dhici weysay hadana mar kale ilkaan isku qabtay aniga ilkaan dhulkaan isku dhajay ilkayga isku qabtay xabad saddexaad u gashtay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah hadana madaxu iga saaray xabadii waa dhici weysay xabadii afaraad kor buu u riday kor ayuu u riday kadib markii xabadii kor u dhacday xabadii kale qoriga qaatay buu wuxuu iga dhuftay feeraha naaska korkiis ayuu iga dhuftay maxaa dartan aad u jeedo xabadii wuxuu iga dhuftay naaska korkiis igu dhuftay xabadii asiga igu dhuftay sanbabkayga ma taabanin wadnahayga ma taabanin dhanka midigtay u baxday oo laba feer dhaxdooda ka baxday waa xabadii sagaalaad mise waa mid kale oo toban xabadii sagaalaad waa tii sagaalaad oo dambeysay kadib waa mar labaad hadan waa suuxay markaan suuxay oo hadan raftay oo hadana ma arkino adiga maqabkii baa la gaaray tuula agteeda ku taalay tuuladaas oo la yiraahdo dharqo oo shacabkii ku noolaa wada naxsan
mar badan hortoodii dad lagu qalay u jeedaan oo laa ilaaha illa muxamed rasuulullah masaafur fara badan hortooda lagu laayay oo diinsoor ilaa iyo baydhabo dhexdeed markay ugu yaraato ilaa 10 nin ilaa iyo 12 nin baa maarkino nimankaas ay ku qaleen oo masaafur ah oo baawur ay kala degeen oo maxaa la jiray ku qaleen dadkii marka oo shacabka ah tuulada deganaa qof dhigi karo warnimiyow ninkan maxaad ku haystaa dhihi karo malahan maxaa yeelay ummadii waa naxday argagax baa ku dhacay Soomaaliya meel kasta ay joogto maxaa yeelay dil foolxun qofka muslimka hatta dilkii la qurxiyo ayaa banaan dadkii waxay ka qalaan hungurigan dhankan hore ay ka qalaan qoorta gadaal hadii hatta qofka laga jari lahaa oo toori afban lagu qali lahaa هذه بس كهانة لكن سقفك وحكي قلان دون تنخوصه البولان وصون جوينين أو ما أنت هذا التوريد يصير مشاعر أو كلواي لنا ماركين وصير مشاعر كيف كتر ناكل أفك أفكت حاسني مدرتي هوست نكان مشاعر قفك مسلم كوكر جران قفك أسقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أيا الله والله وسيد حسده على السودي ومركي كم دالو كم كلا الله ديبا كم مركو دامت كلا الله ديبا سيد قفك ماركين هنجوري جلا جرا marka ummadii dibkaas aragtay ma awoodo inay maarkino ay imaadaan oo ninkan warnimiyo oo ninkan maxaad ku dilaysaan oo maarkino maxaad dambiyo galay war ninkan dhaaf qof dhigi karo malahan maqabkii markii la gaaray aniga mar labaad habadii sagaal markii ugu dhacday soo naaxay oo masaajid baagteeda ku yaala ii dhawa oo adankiisi iyo dadkii galgalay lagu hodaan u jeedaan soo fariistay anigoo dhiigay ku dhex jiro ways la'aan ah sujuud la'aan ah ركوع أنا نجرني أستاذ دقدقة أيضا نجري أنا فدي بان كنت كذا أنا ديجي كده حجرو أيا صلاة دي مخربكي يعيشه بان اسكت درسدي إلهي بان بريء إلهي بان سبحانه وتعالى أسجع ماركنا نبي الله إبراهيم بان أشياء إله ولا أنت دبل قولي ده بدبادي أو يريا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم إله كوان oo xaq darada imaarkina igu haysto maanta dambi aan ka gelin adaa awoodaadi kulli adaa ayagan abuurtay adigan ana ay abuurtay diintaadan dambi kama gelin aayad kale waxaan akhriyo ilaahay subhanahu wa ta'ala marxaati iiga yahay oo ah suuratu maa'ida dhamaadkeedii oo nabiyilaahi ciisa alayhi salatu wasalaam markuu dhahay إلهي أريه دور ماله قيام يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت إلى آخر آية فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الإله نفتي يحيي كجر ذاك كوان وحي يقول لا ذاك إله سبحانه وتعالى كوان ما كنا ما أنت يجبت بادي إلهي بنكو عرّي مخرج مركان تكذب كذب بنكو دعيستي كذب سدحين وحاويمت لبنين كلا أو جاري وطمال تولد على سويستاي جاري أو لركي سماش قبت وهابين ويا هل سهبين نمو لينكي لبنين بجاري كسر دقتي وحي ما تجاوب تاني حبض اللي ورفتي أو جاري يالو أو نمينكي كلا محل يجري أن خوارج تجوكتو waxay soo direen midkii ay ugu yaraaba la soo diray orod geedkaas ku xirnin ka madhi manaya liiri markaas kadib baan garigi xarigi maanta noo caafimaad qaba diidnaa waa la soo qaatay geedkii baa la igu xiray oo meesha ku yaal geed yar oo meesha ku yaal la igu xiray saddexdii nin labadii nin gadaal ka timid iyo saddexdii hore habadaha ay ugu dhufteen gaarigeygii bay fiirfiiriyeen kii daraawlka gaarigeygu ku wareeray automatic buu ahaa anaana loo geliyay gaari markino wuxuu ahaa automatic ah mar alla markuu gaariga ku wareeray anoo geed ku xiran buu ii yimid wala gaarigan maxaa ka leesay buu yiri war gaarigan aniga ma halayna soo kulul bala dimiye furiisan waxa ay qaateen nimankan oo xaqi joogo marka wax aan ka hadlay habeeraatay ma jirto furaan saaxiibada baa hayay ogaawo markaas uu weydiimay xabood baa kugu dhacday buu yiri waa su'aashaas wax xasuusta ilaa hadda markaas waxaan dhahay ma sheegi karo wixii ilaahay qoray baa igu dhacay baan dhahay inuu ugu jawaabay kadib ninkii gaariga ku laabtay uu ku wareeray mar labaad ugu soo laabtay wuxuu yiri gaariga adaa dhakhtar lagu geenayaa kaalim hal dhii jiray bal ma fiirin kartaa daxari ka fur way ma kee kartaa way hadaan garab ku qabto markaas waa iga fur bandhay xarigii buu iga furay markuu xarigii iga furay oo garabkii qabtay runtii alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh badiici oo ayagoo afsaar 5 mitir isu jirnay oo 8 xabood qaarka dambe iga dhacday laf ima jabin xididna ima goyn إلهي سبحانه وتعالى قدرتي سيبا تاسنا إذا إلهي سبحانه وتعالى بماركين الشياطين تكاود بدن ساس دراد دي مركان غاريغا أوتغي وان فيري غاريغي إن وحان كويري غاريغا بتري وباهي بان wax aan ka taabtay iyo loo bixin iyo waxba ma sameeynin maxaa yeelay nimanka Ilaahay dartiis magaalada aan ku keenay Ilaahay dartiis anoo meeshii ku keenay haddana ii dilay waan ogaa markin inaysan waxba ii qabaneen oo isin badbaadinay Ilaahay un baa badbaadinay hayaa oo qalbiga markin oo u dhibtay taladeedii kadib gaarigi markin maxaa la jiray
mar labaad bay xarag hadan geedkii bay igu xireen tala loo fariistay shantoodii ayagoo ah maxaan ku sameynaa baa liiri ninkan maxaa la dhihi jiray 9 xabadood badan baan ku dhufanay qoryahan eber waay saan waay kii marka ayaga u weynaa markaas yimid oo daraawulka ahaa wuxuu yiri maxaa ninka xabad waa u dhuftay oo ninka maxaad u qali weyseen maxaa ninku qali weyseen oo xabad maxaa badahan oo tiridiisan bulbul maxay tahay ninka murtidka wax allaale wixii murtida in la qalaal isku maxaa ninku qali weyseen kadib adiga markay murmeen kadib markii aan maqlay aniga maxaa loo qali waayay ba xogo yar absi ay soo diristay ilaahay baan dib ugu la mar labaad ilaahay baan baryay gacmihii baan yar dhaqdhaqaaq baan sameeyay xarigi ilaahay baa iga furay iyo fudiyaan gariga wadubkaan ugu xirnaa geedka noo fadhiyo ku xirnaa waa iska furay shaar aan watay waa bixiyay fulaanad aan watay dhig kaliya waa bixiyay ayaga hadalkood markuu soo gabagabo waxay ku soo gabagabeen hebel iyo hebel iyo hebel saddexdii ninkan ka hay duurka geey madax ka soo jara wadada soo dhiga liiri amar lagu siiyay go'aankaas markii la gaaray aniga markaas xarig laan bana xarig markaan iska furay xarig markaas ayada xarigeeyay maana xarig igu mixna gacmahayga okay ay ahaayeen kadib mar allaale markii xarigaan iska furay ba adiga oo ayagan go'aankan ay gaareen ba waxay arkeen gaari soo socda leerkiisa baydhabo xageeda ka yimid bay arkeen gaariga asiga ahaaba saddex ay kamid ah ku orday ay u raadsadeen bitiri tolo maad ka bitiri ka soo qaad daraadeedii go'aanki markay gaareen oo kaxanteedii kali ay dhimantahay ba gaariga leerkiisa arkeen gaarigii bay saddex ay kamid ah aadeeno si bitiri ay u soo qaataan laba ay kamid ah way kaceen waxay galeen gaarigeygii bay dhaxgaleen waxay ku mashquuleen lacag shilin Soomaaliya gaariga ii saarnaa oo laga soo diiday diinsoor oo ma arkino baydhabo aan u wada inaan ku bedesho baydhabo aan rabay oo nin sarafla oo saaxiibkay ah ma arkino maxaa la dhihi jiray inaan u geey aan rabay ba lacagii bay ku mashquuleen labana gaarigeygii bay dhax gashay saddexna waxay aaday baawurkii bay aadeen kadib aniga xariglaan baan ahaa hadaa markaan ka caayeen ilaahay inuu lafeega badbaadiyay waan u jeeday kadib waxaan aaminay waa inaan tartiib u socdo carar baan isku day inaan carro neefteed ayadoo ka socoto dhawaaq oo ma arkino ka baxay dhawaaq oo fiiq oo kala oo dhanka midigta oo meesha bad ay ka baxday ba gacanteedii baan saartay markaas xabada feerahan kaaga taalo xabada feeraha iga taalo oo leeyahay dhuftay naaska korkiisa lagu dhuftay oo dhanka midigta ay ma arkino laba feer laba dhaxdood ay ka baxday xabadii ayada ah baan la carray oo gacanteedii baa meesha saartay ayaga dhawaaqi maxay la gaariga daaqadiis maysan xirin daaqada waa u ballaqnaa aniga waardiisanay waa habeen madoobeed oo mugdi ah erkeena daruuro fara badan buu keenay markaas ayada iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gargaaray mugdiga asiga markaan carray wadadii ka imaanaysay diinso baydhabo u socotay baan dhaxda ka gudbay geed qura hoostiisaan iska galay oo meesha ku dumay ayagii dhawaaq iyo wixii markay maqleen way iga soo daba carreen wadadii bay waxay la aadeen dhanka diinso xageeda ay uga carreen aniga geedka hoostiisaan fariistay oo qura ah oo meesha ku yaalay baan isku qariyay abaar markaan geedka hoostiis fadhiyay ba maxaa la dhihi jiray waxaan haddana soo xasuustay dhiigaaga raadkaaga la soo raaco kuwii bitriga doonay iyo kuwan haddeertan diinso xageeda wadada uga carreen soo laabtan toosh ay soo qaataan dhiigaaga la soo raaco Ismaaciil meeshana lagu imaan doonaa maxaa meesha u fadhiyay hadii mar ilaahay ka soo fakiyay ظالمينتان oo hadana tuuriyaytooda gacantooda ku hadana inay ku qalaan tuuridii baan soo xasuustay markiiba sarwaalkani aan watay baa culays intuu ila noqday baan iska bixiyo hinjir kaliya hal buuma kaliya baan reebtay tuulidii ay agtooda igu dilaan oo dharqi la dhihi jiray baa dhanka bidixda ka raacay tuulidii markaan maxaa la dhihi jiray oo la wareegay oo dhankeeda bidixda ah abaar markaan socday anoo maskaxdeeda taanbay ahayd alxamdulillah adkaarteedii baan iska akhristay taladeed ilaahay baan u dhiibtay anoo socodkay uu yahay sidii maarkino socod aad u gaaban sidii diinkii oo kala ah ba meeshii ka baxay waxaan luudo tuulada dhexdeeda wada ka soo baxday oo u socod waxaan rabaa markii inaan aado dhankan adablaha xaqiisa ee meel yar buulo barako ayaa markaas targetkii saaran oo ii jirto markaas 14 kilomitir laakiin waxa iga soo sokay tuulo kale oo la yiraahdo Bootis marka sidaan dareemayo dhulka waa dhul aad si fiican u kala taqaanay dhulkan ka shaqeyn jiray buu ahaa oo mar walba service aan ku sameyn jiray wadooyinkii wax walba si fiican baan u kala garanay si watalkaasi marka kadib markii tuuliga dhanka bidixda aan ka raacay wada tuuliga ka soo dhaxbaxday baan ku dhacay tuuliga ilaa kuma leeyahay karo waxba materika waxba iima qaban karaan iyo badbaadi ima sameyn karaan maxaa yeelay hadii wax ii qabanay maanta oo dhan markii korkooda lagu dilay ayagana meesha ay taagnaayeen baa ii imaan lahaayeen wax ii qaban lahaayeen saas ay tay tuulidan ayaga haysto oo wada degan waana joogan wax jooga dhan buu tuulida ayagii baa u badnaa markaas xoog ku haystay tuulida kadib tuulidii jidkii baan ku dhacay oo maalin anoo survey jidkaas oo mana sameynay meesha ida maray wadadii abaar markaan hayay baa waxaan arkay toosh wato baan arkay tooshkii markaan arkay baan ka carray geed
dheer oo maarkino gadaashiisaan istaagay ninkii markuu gudbay wadadii aan ku dhacay abar wadadii markaan hayo oo horey gadaal anoo fiirnay culays baa ay koray wadadan maxaad haysaa wadada dhanka bidixda iska mariyay dhinaca midigtaan ka maray wadada waxaan socda habeenkii dhan guureeyo ba waxa weerar igu soo qaaday meel qabri ku yaalo tuulada sagteeda ah oo maarkino dadka reer baadiya roob albari wax Soomaali ku sameystaan oo ee fara badan oo waagi idaal dadka midkood cuni jiray ba weerar igu soo qaaday ilaahay baa iga qabtay waa fariistay araan isaga shubay waa iga carareen ilaahay baa iga qabtay waxaan socdo markii dambe waxaan arkay meel adiga meesha badaha igu dhufteen 1 kilomitir ama u jirto ayaa waxaan ku arkay dad reer baadiyo oo meel degan oo duur ah dabati wax meel u shidan dabati baan arkay waan ku leexday dabati markaan dhaxgalay waxaan isdhahay talow amay meeshan ku jiraan aan isdhahay mar kale dabkii baa shakiga dabku u dambeeyo oo dhanka duurka xaqiisa xigo ayaan dul istaagay nin dabku dul fadhiyaan la hadlay oo reer baadiyo assalaamu alaykum baan dhahay assalaamu alaykum teedu maqli waayay waa maxay yeelay oon iyo harraad gaajo inta waan isku darsaday maxay yeelay aad baan u fuuq baxay dhiigbax baa igu dhacay ninkii hadalkaygu maqli waaya way bii soo istaagay markuu arkay baan u sheegay niyo maxaa la dhigi jiray dhibkaan igu dhacay ma waxa tahay ninkii galabta la dilay marka ilaa tuuladu jooga asiga sonkor gadashii wax uu meesha u joogay oo uu maqlay habadii ilaa dadkii kor iga fiirsanay uu kamid ahaa ninkii galabta la dilay ma tahay buu yiri oo seek soo faktay war ilaahay baa soo fakay biima hisaabaan markuu horeys on zaid bay hay biyo keenay biyo wax yar kaabay isku maanan badan maxay yeelay qof habad ku dhacday biyo isku ma badiyo maxay yeelay nafta ka imaanaa dhakhtar baan ahaa saas daraadeed biyo wax yar baan kaabay kadib ninkii waxaan ka codsayniyo dhibkaan ay igu dhacay meesha saana ka imid anoo musaafir baa nimankan oo maxaa la jiray jidkan ay istaagay wax badan ay u dhuftay gaarigayga dhacay waxaan ka codsanayaa baan dhahay nimankan meel aan markina kulli dadkii qayldaan igu dir habeen baa la jooga haddaba baa isoo weeraray ilaahay baa iga qabtay eeyahan way dili lahaayeen saas daraadeed dhulkan libaaxa joogo waraaba wax kasta joogo maxaa la jiray dhiigaygii baa socdo waxaan dhahay meel intaad igu qariso oo iseexiso dadkii qayldaan igu dir ninkii uu argagaxay maya biir walaalow hadii maanta aniga aan wax ku qabto nimankan al-shabaab yiraahdo bari ana idilayaan biiri meesha adiga maanta total ana bari tagay biiri saas taraad aniga ma arkino inaad iga raali ahtid barha biiri ninkii naagtiisa mees joogtay naagtii baa waxay tiri walaalow muslimiintiin nin muslimo walaalkeena oo saacadan dhibkan ku dhacay oo socdo duurku ma toosin karnee adiga dad al-shabaab ka baqayso ana ninkan maxal li jiray qarin oo dufuladan iyo wax baan kor ka saaray dadkiisana qayldaan ugu diri waqti xun baa la joogay maxal li jiray ord beeraha iskaad ninkii gabadhii qaaligeed uu anaantay wuxuu yiri maxal li jiray ayaa naag meeshka ah buu yiri gabadhii way isilkaan beesay ala kulli hal markii dambe waxaan dhahay waxba darteeda isku dagaalina maxaa raashin idin yaalaan dhahay aniga raashin maxaa idin yaalo gabadhii waxay tiri ambuula nootal ambuulada maarkino baa igu soo shubaan gabadhii khayr Allah siiyo aad baan ugu duceeyay abaalkeeda kulli hadda meel ay ku nooshahay ma garanayo maarkino waa wadanka Soomaaliya bay ku dhex jirtaa gabadhii ayad kiila ambuule baa igu soo shubtay oo baseel ah BAE keentay accident biyo ah ninkii ulbu ii keenay xabadii buu iga helay oo feeraha iga dhacday amaamadiisa iga helay maxaa yeelay meesha hawo aari baa iga galeysay oo dabeeshi baa meesha iga galeysay markaas ayada xabad ku dhacday ulbu ii keenay ninkii goow isiyay gabadhii dacaskeeda oo number 9 bar aan ku qiyaasay bay ii bixisay oo ila ekeen khayr Allah siiyo bartii baan ka lugay wadadii tilmaamaan jidkii baan ku dhacay anoo meel duur maraayo ayaa maxaa la dhihi jiray niman raadiyal yar wato iga hor yimid oo meel duur anoo maraayo BBC dii ay leedahay war degdegna soo gaaray sarkaal oo shaqeeyay caafimaadka adduunka WHO Ismaaciil Maal Ahmed oo galabta lagu diray tuulada Dhargo ee u jirta magaalada Baydhabo 45 kilomitir sarkaalkaas oo gaarigiisii la qaatay niman dabli ay dileen niman raadiyaasha dhageysay lama hadlin ilaa gaar dimeerada waxay u wateen dhanka diinsoor xageedii oo warkii idaacadaha in aad dhimatay ay qaateenba hay'adaha waa qaateen waxay ku qaateen yarkii aniga iga carray oo ila socday mar allaale markuu gaaray meeshii ani aan ku dhashay degmada diinso markuu gaaray baa la wareystay wareysi baa la yeeshay warniyo Ismaaciil intee lagu dilay see loo dilay wixii markii la weydiiyay Ismaaciil waa dhintay Ismaaciil oo nool hadaad aragtaan buu yiri أو شيخ حسين وأضيء ماركينو دبرها وقاس وهنجر أو شيخ حسين اللي يجي أفرتن سنة مدة اللي جو كوردنتي أو شيخ حسين وإيمان أبي إسماعيل واردنتي هذا الكاسيجا هذا WHO شغالة يعني قارئ هذا WHO مالك استيجوجين بالله شيء WHO بها وربحنتي BBC دو قد بيسي سيدا BBC وربحنتي كسوسي ديسي الذي لا دمت إسماعيل كذب قف محل هذا سيدير حبضات قارك الدم وقتاله حبض فيرها وقتاله محل هذا مقالة يودن إنه أوجر جارت إيسن أوجلاين ضمن ولي إيراد سنة يعني
al-shabaabna ay doonayaan inay ka daba tagaan oo noloshaada yar ku sii ceyrsanayaan kadib magaalada aad ii sheegtay tuulada aad ii sheegtay inteeda badan waa dad al-shabaabku ay xoog ku haysteen tuuladii markii aad ka baxdo ama aad ka baxday ma ku suuro gashay inaad hesho gaari ku qaado maadaama qof 9 xabadood ku taalo lug uusan meel ku gaaraynin gaari maanan helin isla markii nimankii reer baadiyaha markaan ambuuladeedii iyo biyaheygii iyo kabihii daaskaan ka qaateen kasii lugeeyo nimankii gaaradameerad watay oo idaacadda BBC markaas warbixinteed ku jirtay aan gees maray waxaan socdo habeennimadii waxaan gaaray haddana nin kale oo reer baadiyo meel degan baan ku leexday ninkii asiga ah hurda ku jirtay waqti 6 habeenimo ku qiyaasay bay ahayd mar allaale markaan dul istaagay salaamu calaykum ninkii markaan dhahay baa markin xoga baraarug amal buu noqday ninkii ulbu ii soo qaatay a'uudu billahi minash shaytaan rajiim maxaa i dul taagan buu ninkii weerar bay u soo qaaday asagoo hor markaas waxaan adeero oo sheekhu ma saana dad ku tahay buu oo saama binaadam ku tahay maxasan ku galay libaa ma ku cunay adeero ma tuuga ay dishay baan dhahay markaas oo magacooda aan isaga ilaalinay nimankan oo shayaadiinta oo maarkino shayaadiintan oo al-shabaab magacooda markaas aan iska ilaalinayo oo maxalli jamay ku maqlaan oo islaam waxaan ay tuugan maarkino tuugan u saarsiyay maana ilaa ayaga tuuga ka daranay mar allaale markii maxaa la dhihi jiray oo ninkii odayga ahaa oo dadnimadeed inaan dad ahay aan ogaaday oo inaanan jin ahayn inaanan duwaaq aan ahayn oo dad aan ahay oo dad la dooriyay inaan noqday markuu odaygii arkay baa wuxuu yiri adeero aanagil ma ku siyaabiro aanagil ma rabe adeero waxaan dhahay ritigan hadduu geela kugu jiro waxaan rabaa inaad igu qaadid tuuladan boots liradaan gaari waayo oo intaas kilomitir oo 7 kilomitir ma socon lahaa ilaa iyo fiidkii maqribkiisaan u soo carray ilaa haddeertan lugan ku taaganay waan gaari waayo xabada igu yaalo waa dhiig baxay dib baa hayst adeero tuulada ina geesidan ka rabaa odaygii wuxuu yiri adeero ilmahana meel iga joogo geelana meeshan dhulkan dugaag baa joogo saas daraadeed tuuladii waa tan waa dhowdahay markii waan ku duceynaa iska bax buu yiri waxaan ka codsaday adeero haddii wax iraadinayo aad aragto dad ah oo dad iraadinayo dad aragto nin noocaas aan arkay haydhiin baan ka codsaday odaygii way iga aqbalay kadib waan isaga tagay odaygii adiga waxaan soo ambuuladii gadaal daba intaan ku duleeshiday maana sidii jalaatid oo kale meeshan isaga dhuuqa ambuuladii biyi baan ka daba geeyaa kabahan watama oo daaski gabadhiisa markii dhiig uu ka buuxsamo simbirrax oo kale aan dhulkan ku dhaca haddana tartiib anoo tabcaan ayaan haddana markin waa istila sidii baan ku kaca saan u socday oo socod habeenkii oo dhan aan u guureynayay waxaan gaaray meeshii tuulidii markaas oo igu soo sokeysay oo boots liiraado ku taalo magaalada Baydhabo meel u jirto 50 kilomitir halkii aad ku dhaawacantay meeqa kilomitir u jirta 7 kilomitir waxaana socday 8 saacadood 8 saac kumbuleed baan socday 8 saacadood waxaan gaaray tuulidii ayada 7 kilomitir ii jirtay baan gaaray dukaan baan gargaraay naag baa ilaa heshay way tiri warnin noocaasaan hayo saasa markaas waxay tiri war ninkii la sheegay la dilay miya musoo noolatay naagti way soo baxday isla markii soo baxday naagti waa yar argagaxday markii yar argagaxday baa naagti ha argagixinay waxaan waa igu dhacay ilaahay baa ii qadare bal niman ii soo kicay baan dhahay tuulada waxa habeenkaas marti ku ahaa laba wiil oo maarkino de magacyadooda hadda aan sheegi karin sabab nabadgelyo awgeed ilaa wadanka lagu xuray haduu ilaahay yiraahdo oo saaxiibadeeda oo meeshii yara buulo baraka farmisheel kule oo reer deegaankaas ah ayaa isla markiiba maxaa la dhihi jiray nimankii baa naagti ii soo kicisay oo ayagan tuulada marti ku ay ka imaadeen tuulada buulo baraka liiraado bay farmisheel wax samalay ku lahaayeen kadib nimankii man alaala markii gabadhii soo kicisay way arkeen Ismaaciil Booliyo maxaa saan ku galay walaalo waan u akhriyo waan u sheegay al-shabaab ay dishay baan dhahay saaxiibo markii dhibkaas ay ugu dhacay intaan waxba lii qaban kor telefoon haliisiyaan telefoon baan qabsaday telefoon bay siiyeen dadkeygii baan la hadlay all telefoon kasta habeenkaas aan waa dadkii wixii soo raadiyay oo dhan maxaa la jiray waxay wada ahaayeen telefoon oo maxaa lama heli karo iyo waa dansiyahay dadkii telefoonada waa dansimaan bay u badnaayeen kadib waxaan la hadlay wiil maarkino maxaa la jiray Allah u naxariisto duu dhintay iskiisu u dhintay Maxamed Ibrahim yiraahdo walaalkii ah gabar walaashii qabay baan la hadlay oo MSF Switzerland u shaqeeyo markaan dhahay Ismaaciil baan nahay waxa codkii uu ka shakay Ismaaciil mitid wiilish baan ugu dhiibay way u sheegeen inaan ani aan nahay oo meesha saan jooga xal aaw dhan gurg maarkino maxaa la soo guureynay
maqrabkii baa dadkaygii markii wiilkii tagay waxay soo direen gaari oo dhayna ah oo ciidan saaran oo dad qaraabadeedii ehelkaygii ah oo xigtideedii ah ayaa waxay soo aadeen meesha aniga liigu dilay meeshii goobtii waxay ku soo aadeen waqti 6 habeenimo markay meeshii imaadeen waxay ugu imaadeen meeshii dhiigaygo ay wixii wadanka joogay dhan isugu yimid oo shaarkii ani aan watay jajeexay oo ay cunay ay meeshii ugu imaadeen ayagii ku murmay ninkan ay baa cunay iyo ma ahayn nimankan waa qaatay miidkiisi ama maxaa la dhigi ninkan wuu fakaday wuu carray ayagoo intaas wada murmay oo habeenkii meesha iska seexday nimankii waa ay waayeen telefoonada nadweegna maysan haysinin kadib yarkii markaan la hadlay oo Ismaaciil aan ahay oo u cadaatay markaan ay eheladaadii ay tuuladii lagu dhaawacay ay yimaadeen ma isku dayeen maamulkii ama maamulku shaaqi dadkii xabad kugu dhuftay kulay tuuladii way joogeen oo ayaga ka talinay ma isku dayeen inay la hadlaan ay weydiiyaan ugu yaraan aaway wiilkeeni meedkiisii ma yiraahdeen taas diinsoor baa ma arkin oo lagala hadlay waxaa la yiri Ismaaciil hadaad al-shabaab tihiin maxaa dambiyo galad ku disheen maxaa u dishay markii la yiri waa nimin khaa'imiin oo dhaalimiin ah waay oo ilaahay ma arkin subhanahu wa ta'ala diintiisa ka been sheegayo waxay yiraahdeen Ismaaciil ana kama dilin al-shabaab Ismaaciil mar alla markay ogaadeen in ilaahay afkii ayagan aan ka fakaday oo anigana hadhow inaan wax sheegi doono ay og yihiin waxay yiraahdeen Ismaaciil ana kama dilin Ismaaciil waxa dilay bay yiraahdeen midowga maxaakiimta dilay iyo albayaan ba dilay oo been oo ilaahay kaga furteen dadkay ka dhaadhiciyeen marka tuuladaas ayada wax maamul yiraahdo ma walahayn waa tuulada dad iska ma arkin oo beeraley iska deganaa oo markii oo roobka da'o beerahay ka meeshay soo degaan mar alla markii hadan waqti la gaarno beerooda isaga laaban jireen waa tuulo yar way oo dharqal yiraahdo Allah u naxariistay waxa asaasay nin malaaq ah ma arkin malaaq seem uu dhigi jiray oo digli mirifla ayaa asaasay tuuladaas ayada tuulo aad u qiimo badan bay ahayd marka al-shabaab mar hore way inkareen oo ana kama dilin bay dhaheen oo ayagoo ma arkin maxaa la dhigi jiray ka been sheegaayo okay way inkareen taas aan ka soo gudubno markan waxa joogta tuulo yar oo farmashiyo leh farmashiyooyin leh oo wiilal laba wiil ay kugu soo dhaweeyeen tuuladaas kadib wali dhaawacatay ugu yaraan gargaarkii degdega ay maadan helin kadib maxaa dhacay gabadhii oo nimankii soo kicisay isla markiiba abeenidii wiilashii meesha waa iga qaaday markaan waa fariistay gabadhii guriga lagtisaas ka fariistay markii intii ayada nimanka ku soo wiilashii ay igu soo kicinaysay kadib waa wixii waa indhan laas baan ahaa waa 8 say wax li jireehed way qaadeen waxay geen midul ku yaalo meesha agteedii oo jidka dhaxis ku yaala igeeyeen joodiri baa la dhigay khayr Allah si aad bay u gargaareen gabadhii biyo soo kuleysay 3 wiil iyo labadii gabdhood insha Allah taala khayr badan bay sameeyeen oo dhiigii bay iga dhaqeen oo maxaa la jiray joodiri bay isiyeen oo xabadihii bay ii tiriyeen wiilashii anigii wiilkii seedigay markaan la hadlay magaalada bartamaheed u tagay odayaashii buu soo sheegay inaan aniga noolahay odayaashii xogo way ka yara baansideen idinka la hadlaa la yiri waan la hadlay odayaashii inaan noolahay naftii u jirtaan u sheegay tuuladaas bootsaan joogo oo ku taalo meeshaas ayada oo alxamdulillah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ii gargaaray kadib isla markiiba waxa ila soo hadlay adeerkay oo aabay la dhashay oo baydhabo joogay baa ila soo hadlay oo Cabdi Macalin aadan la yiraahdo waa maxal li jiray taliyii qeybta dawladda ku meel gaarka maxal li jiray Abdullaah Yuusuf ee markaas ayada gobolka Baay ahaa baa meeshii wala soo hadlay waxa kale ila soo hadlay khayr Allah siya deegaankaas xilibaankii u dhashay oo la dhigi jiray Afraale ayaa ila soo hadlay meel aaminad joogta cid wax ku yeeli karta malahan intii qoomkaas meesha degan ay gabar ka joogto cid ma arkino kugu xad gudbi karta malahan dadkaaga intay kugu imaanayeen nabadaadii ku joog baa liigu yiri kalsooni buuxdaan helay dhalinyaradii qoryahooda ay soo qaateen wixii deegaanka dadkii oo dhan waa soo wada kaceen kadib meeshii baa waxa igu yimid gaarigii walaalihii ay wateen oo mar hore miidkayga soo doonay ayaa meeshii igu yimid gaarigii baa ma arkino maxaa la dhigi jiray liigu soo qaaday waxaa la keenay meesha la yiraahdo magaalada Diinsoor dhaxda waxaan ka soo qaatay filaabooyin baa igu soo xiray markaan soo maray tuuladii wiilish farmisheesh ku lahaayeen oo la dhigi jiray buuro barako meeshii bay filaabooyin igu xireen barti baa iga soo qaaday tuulo Misir la soo maray hawal barbaran soo maray Misir la soo marsiyay mar alla markaan Misir soo dhaafay baa magaalada Diinsoor ilaa iyo Misir waxay isu jiraan 30 kilomitir dadkaygii iyo ehelkaygii iyo wixii oo ma arkino maxaa la dhigi jiray Soomaali ah oo damiir Soomaalinimo ku jirtay ayaa ma arkino iga hor yimid oo iga baabuur wato maxaa la dhigi jiray meeshii igu soo dhaweeyeen tuuladii isbitaalkii baa la geeyay isbitaal degmada Diinsoor baa la dhigay
MSF Switzerland markii ay ka howlgasho isbitaalkii baa lagu soo dhaweeyay isla markiiba WHO hay'adan u shaqeynayay bay soo hadashay ay ku wargelisay shaqaalaha isbitaalka markii degmada Dinsoor ay ku wargelisay MSF inaan operation lagu sameyn karin oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay igu soo diri doonaan diyaarad oo markii evacuation ah anoo isbitaalka ku jiro habeenkii maalinkii 26 bishii July baa dhibkan igu dhacay 27 habeenkii dhan baan guureynay maalinnimadii 27 bishii July 2008 isbitaal MSF baa maalin 5 saac ribil ii soo dhigay isbitaalkii maalinkii habeenkii waa 27 maalinkii 28 bishii July ayaa maxaa la jiray 8 saac maalinimo ayaa diyaaradii aniga lii soo diray iyo dhakhtar markiino maxaa la jiray Suuriyaano Dr. Umar Saalax yiraahdo oo la socdo oo Syria ah iyo labadii pilot baa meeshii markiino airport Dinsoor degmada Dinsoor igu soo degtay barti baa igu soo qaaday waxa la keenay Nairobi Hospital halkaan daawadeedii ka qaatay intii aan isbitaal ku jiray nimankii shayaadiinta ahaa waxay weerar ku qaadeen carwo weyn oo aan lahaa Al-Huda yiraahdo degmada Dinsoor ku taalay bay weerar ku qaadeen aabahay ku jiray meesha ku weerareen ala kulli odayga dib ma soo gaarin meeshii baa balinaga ka dhacday lacag iyo mobile iyo maxalli jiray iyo alaab kale muhiim oo aan lahaa meesha ka qaateen oo carwadii aan lahaa bay weerar ku qaadeen deegaankii dadkii degmadii joogay oo dhan baa ganacsatada wax walba waa yaabeen oo ay la yaabeen dadkan sidii hor u yihiin iyo dhac iyo balilaqada ay ku dhex jirto oo ay wadaan Eliyabiin taasoo ay ku andacoodeen in murtid kadib Soomaaliya baan dib ugu laabtay ayadoo maxalli jiray hadana sidii dhibaatadii ay socoto baan Soomaaliya dib ugu laabtay mar allaale markii magaalada waajidan diyaarad ugu tagay meeshii baan gaari ka qaatay Baydhabo maray marka aad Soomaaliya ku laabatay waa xilima maxaase ugu laabatay oo shaqadii WHO miyaa dib u bilowday ها أنا جو وحبا أن ماركينو محلي جري شكي وجرين با Soomaali dib ugu laabtay 18 bishii September 2008 kiba waxaan markino waajid diyaarad ugu dagay 19 bishii September 2008 ki maalin Jimcaha waxaan gaaray meeshii magaalada Baydhabo aan gaaray kadib markaan markino 3 bari baan joogay magaalada Baydhabo kadib Dinsoor baan u sii gudbay gurigeygii baan tagay bir Ramadan baa gabagabada markaas ay maraysay magaaladeedii baan tagay oo maxalli jiray anigoo markino Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad siiyay oo wax afsi liraadaan igu jirin oo taladeed Ilaahay u dhibtay baa meeshii tagay baadama ma meeshii markaan tagay odayaashii maxalli jiray oo deegaanka iyo al-shabaab mar badan shir ay qaateen wixii ninkan aad ku dishay noo sheega oo hadan mar labaad ay beensi sheegan waxay yiraahdeen ninkan waa ku qaldanay maxalli jiray waa lagu qaldamay oo sheeko noocaas magtiisan bixinayna bay yiraahdeen oo beena qoraal bay odayaashii ku qaniyeen ay u sameeyeen oo waxba aysan markiin ku suurtoobin mar allaale markii magaalada ayaan tagay al-shabaab gaadmay balawday inay haddana 3 bilood bay gaadmay ugu hayaan anoo degmada Dinsoor joogo deegaankayga joogo anigana waxaan diyaar u ahaa inaan dhinto anaan wax dilo ayaan u diyaar garoobay inaan iska dhiciyaan diyaar u ahaa Soomaali ayada maxalli jiray deemaanti tafarruq iyo dhibaato ismooye wax maanta la dagaalamo waxa ugu jilaacsan nimankan al-shabaab liiraado oo maxalli jiray dadka gaadmay inay ku dilaan face to face oo dili karin oo wax ku fariisan aysan jirin diyaar garow adag baan galay maxalli jiray staff baan diyaarsaday aniga nafsad ahaanteedu waa diyaar garoobay adiga 3 bilood baan nimankii gaadmay ugu hayay Dinsoor September October November December 26deedii mar allaale markii nimankii qaar kamid ah kuwii aniga idilay baa waxaan ku arkay goor habeen oo fiid anoo magaalada dhex socdo ayaa waxaan arkay 2 nin kamid ah nimanka aniga oo ayaanti idilay baa magaalada ku dhex arkay waaga markuu bariyay baa ayagoo dhigi jiray nimanka lama yaqaan say ugu hayeen oo xafiiskooda ugu tagay kii ay ugu weynaa oo markaas meeshii joogay oo liiraado Sheekh Hussein liiraadaan u tagay waxaan dhahay Sheekh Hussein station saligan ugu tagay waxaan dhahay Sheekh Hussein diintan Ilaahay subhanahu wa ta'ala markino cadaalad in lagu sameeyo ayaa maxal dhijay loogu talagalay in markino maxal dhijay diinta loo kala eexda ma ahane nimanka aniga idilay aaw magaaladan aan ku arkay waa al-shabaab ka ahaa oo maxal dhijay oo 9 xabood igu dhuftay nimankaas ayaga ah maxal dhijay nimankaas waxaan rabaa in la ii soo saaro maxkamad waxay igu dileen inay sheegaan ma rabaa Sheekh Hussein wuxuu igu jawaabay afallahu ama salafa liiri waxaan waa la afiyay arintan saambay noqotay ogaaw bay igu yiraahday markaas waxaan dhahay Sheekh Hussein aniga dhiigayga ma afinana ninka wax ku dhacayna waa aniga waa noolahay mana afin doono arinta odayaal iyo si beela loo galay miyaa markii hore
markii si beel ahaan baa loo galay waxay yiraahdeen ninkii Ismaaciil dilay baaris baan ku hayna waa keenayna waana la yaqaana waan ogaanay eday yihiin iyo wax yihiin waa ogaanay marka markino ma xaqan waafajinayna bay yiraahdeen kadib markii anigina face to face aan ugu tagay oo wax la soo qabtaba la waayay odayaashii la meermeernay mar walba been loo sheegay hadba geedka looga yeeray maalin mid cusub u imaanay odayaashii ma haystaan wax ixtiraam liiraado waa odayaal dhaqameed bay ahaayeen waa ugaasiintii waa samadoonidii qof ma tixgelinayaan oo ma arkino kala dambeyn wax la yiraahdo ma arkino bulshadii oo dhan wiil yar 18 jir ama 20 jir ah ayaa oday ma arkino waayeel ah oo intaas sina xil hayay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka adii ka weyn sharaftid uu ku amray oo ma arkino oo diinta ay qabto argos ay wadaan inay wadankeena duulaan ku yihiin in ma arkino wadanka ay soo galeen niman ajaanib ah oo xarun waaweyn ay ku leeyihiin aan ognahay hadirtaan maababkooda wax walba aan hayno gobolada Baay iyo Boqol ilaa iyo Gedo iyo maxal ila Jubbada hoose Jubbada dhexe meelaha ay degiin oo dhan aan ognahay waa jiro maxal dhijay nimanka waa niman duulaan wadanka ku ah waa niman maxal dhijay oo wadanidnimo ay ku jirto ma ahan mideeda kale hadii maanta nin al-shabaab nimanka darajada lagu sheego ugu waaweyn oo ayaga madaxdoodii ah waxa waa niman staff nimankan ajaanibtu ah oo maxal dhijay staff waa niman go'aan malahan wax ay go'aamin karaan malahan go'aan ay gaari karaan maahan waxa loo diray in wax qof alaale qofkii aqoon-yahan ama dhakhtar ah ama maxal dhijay culimo diin ama maxal dhijay oo professor ah ama wax garad ah ama markina ugaas ama samadoon oo Soomaali ah waxa nimankan go'aan oo la siiyay soo dila nin kasto ay dilaan lacag bayna ku qaataan oo lagu siiyo inta badan saas daraadeed marka waxa Sheekh Hussein markaan dhahay diin hadaad wado hadaa waxa wado ay diin yihiin nimankaas soo qabanay banaanka ikeen hadaysan ahayn baan dhahay wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha wa ilaahi quraankiisu ku yiri nimankaas intii ay igu dhufteen baan ku dhufanayaa baan dhahay in allaale sagaal habood ay igu dhufteen hadii ay ku noolaada ama ay ku kaana ayaga u taalo maxal lii jiray nimankaas sagaal habood ninkii asiga ha fadhigu ku istaagay kor u istaagay wariyaa buu yiri markaad aayad isu daliishinaysid buu yiri maxal lii faman afa wa asla salaam dhihin buu yiri aayada quraanku isoo qaatay aniga ma afinin ban anaaba taagan ban dhiigay aabayn ima afina walaalkii ima afina qabiilkii ima afina anaaba taagan ban nimankaas aniga idilay ii keen ban ninkii asiga aha isla markiiba go'aan qaatay wuxuu ka shaqeeyay sidii mar laba hadan aniga liigu khaarijin lahaa ayagoo horeyba gaadmudood u socotay niman masaajidada ay u gaadaan salaada subax masaajidka ayaga dartoodan u daayay salaada cishaa waan u daayay salaada maghribka waan u daayay masaajid iyo aniga heegan ah waxaan galaa kaliya ku tukan jiray degmada soo intaan joogay salaada duhurka iyo salaada casirka wixii ka dambeeyo xaafidayga sigu xooyin jiray anoo diyaar ku ah guriga goorma lagu soo goorma ku soo weerari doona oo ma arkin aan u taagnay kadib nimanka ayaga ahaa 26 bishii July bay ii waceen 26 bishii December aan dhahay 2008 xafiiskooda igu yeereen aniga iyo ugaaska dabare iyo ninka asigana samadoon ah ma arkino beeshan aan ka dhashay samadoon u ahaa ay noo yeereen mar allaale markii xafiiskooda aan tagay ba maxal lii jiray waxa hadlay kii gudoomiyaha degmada markaas ka ahaa oo aniga asiga isku dhaanay oo ma arkino station ugu tagay dadka aan isku dhaanay ba wuxuu yiri ninkan ugaas anaka idin yeernay ninkan la yiraahdo Ismaaciil arrimihiisa oo dhan waa la soconaa waan ognahay ninkan ma arkina dawladdu la shaqeeya ninkan waa nin murtid oo mashaar buu wuxuu ka qaataa daabshiil bal agtis loogu soo dira ninkan marka ala kulli haalin waxa dhameystiri doono buu yiri nimanka oo asiga markaas la fadhiyay nin la yiraahdo macallin jinaw la yiraahdo asiga markaas la fadhiyay oo markaas u qaabilsanaa ayaga baanduulaha ma arkina gobolada Baay iyo Boqol u qaabilsanaa kiiba hadalkiisii watay ugaas ninkan mar horan damaanay inaan dilno intaan qoriib u haysta nin diyaar garoobay waay waa nin ma arkina maxal lii jiray murtid ah waay arrimihiisa way ku adihiin ninkan marka inaan dilna go'aankeyga noo ahaa jaanis aan ku dilniyo inaan hortaada ku dilnina xoogo yar waana la xumaatay saas daraadeed waxaan rabnaa ninkan oon kugu yeernay oo ogeysiinayna inuu wadanka ka baxo 24 saac gudahoodii inuu wadanka nooga baxo dhulkaan ka talino hadduu rabo baydhaban geynina oo ADC geynina hadduu rabo diyaarada loo soo diray markuu dhaawacmay haddana gaalada diyaarada u soo dirsato maxal lii 24 saac jaanis haysta إلا أنت زوجي ورا بحاجة جوست يقول يرادن مركز وحنا أنا ما هذا الكلام عنه أنا ما أركن وحشك إني يقول جرين يأبسي إلهي وحن كانوا يقول جرين بوحنا أنا ما هذا الكلام عنه وجالس كي بقولي ما هذا الكرتوان هلا يا بنده أنا جوان بحا يا بنده لكن سوى عنده أنت مقالة أنا أقول بحا روح على الروحي السهر استاج وحن كلامنا لنا يقول عنده مقالة وإن كذا بحا يا بنده markaas waxay ugu yiraan jidkeen maraysa si aadan isugu dheen adiga iyo markino dhalinyaro jidka joogto mujaahidiinta
maya jidkaan maraay ma arkino anaa idin soo sheegi doonaa baan dhahay kadib waxaa telefoon ii soo diray midka Sheekh Hussein ila gudoomiyaha tuulada oo degmada Dinsoor ayaa ila soo hadlay jidkee maraysaa buu igu yiri waxaan dhahay jidka buulan jidka maxaa la jiray waxaan maraa iidaalan marayaa baan dhahay taasoo la ii sheegay inay meeshii ugu diyaar garoobay habeen markaas dhanka xamar u socotaa miya waxaan u socdaa dhanka Kenya u soo socdaa dhanka buulan raba inaan ka baxo isla markiiba gaarigeygii dadkii dhibaatada haysto daraadeed iyo argagax iyo dadkii dhibka ku dhacay daraadeed baa waxaan waay wax shidaal iga gato nin kasto ani aan salaam waa iga carray wuxuu leeyahay nabad Ismaaciil nabad waa laga sii carray magaaladii waxa ila hadlaan waayay 12 saac galabnimo December 2008 ugaaskii oo maxalli jiray oo isoo kaxeeyo meeshii ila imaaday oo inuu ogaado bixitaankay uu ogaado la rabay gurigiisu isaga carray wax uu qaban kara malaha odagii ilaan ma arkino dadkii ma arkino wax ka amar qaadanay malahan go'aan hadii ma arkino 15 jir shayaadiintan oo la dagaalanka ma arkino maxalli jiray buradiimeedan meel joogo waxa ka wad badan odagii 80 jirka ah waxa way warka markii mid kan 15 jirka shaydaanka ayaa la qaadanaya saas daraadeed kadib adigii markii dambe shidaal waa helay waa soo gatay hubkaygii baan soo qaatay magaalada Dinsoor baan ka soo baxay dhankan Bualan soo maray adigii Bualan meesha liiraad markaan imaaday baa wixii markii huban watay dhan meeshaas ka dhigay buundada Bualan lugan ku soo gudbay mar alaale markaan buundada soo gudbay gaarigeygii buundada gadaashiisa la igu keenay gaarigii meeshii baan ka soo qaatay afmadow meel liiraadaan imid guri meeshaan ku soo degay in markino aad u wanaagsan hadda magaciisa oo markino nabadgelyo awgeed hadaan meeshaan aan ugu sheegi karin aad ii soo dhaweeyo maxalli jiray 3 maalmood baan gurigiisa ku qarsanaa gaarigii meeshaan ugu soo tagay gaarigii meeshaan iska dhigay gaari soo socdaan hoomeen soo raacay waxaan imaaday magaalada Dobley markaan imaaday hotel magaalada meesha laga gala ku yaalan ku degay kadib markino anoo wulib wato markaan Bualan soo maray waxaan soo gatay khamiiska dhar ayaga markino kaba ayaga gaar u ah iyo maxalli jiray dhar ayaga gaar oo qaadan jireen iyo masjaaki wax samaan soo gatay ayaga ay qaataan shabaab lagu yaqaano ayagoo marka ku soo dhaxmaray inaan ay iyo amaamadii gaduudnad baan soo qaatay waxay ii maleynayaan marka inaan aniga aan ahay ayagii marka alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh markaan soo gudbay oo adiga 3 bil kadib oo Dobleyda aan imaaday baadiga meeshii markino maxalli jiray Dobleydi ba gaari taxi ka soo qaatay ciidamadan oo dawladda Kenya ee markino fadhi xuduud ayaana soo dhiibay bartiba markino UNHCR igu timid iga soo qaaday keentay meeshii liido xarada qaxootiga ee Dadaab markaan imid kadib adiga muddo markaan joogay kadib UNHCR baa waxay ii wareejisay meeshii liido Kakuma ay hadirtan ku sugnaay oo xaaladda waqtiga la joogo hadda meesha safar baan ku ay Kakuma ayaan deganahay xaaladeedu marka waa saas waaye saas daraadeed markino ilaahay baa marka daalimiinta soo dhaafsiyay waa qiso xanuun badan dhinac marka laga fiiriyana qiso qof haliyay ah uu sameeyay la dhihi karo ugu dambeyn Ismaaciil ummadda Soomaaliyeed waxa aad ugu baaqayso iyo in aad Soomaaliya rajo ka leedahay in aad ku laabato goorahan dhow iyo muddo dambaadii ay noqonaysaa إن شاء الله تعالى أنتي نك مدا خوارج دول كان صومالي وكسبون يعني مرة وإن عند بيت هذا قانك جواوا إن عن ماركين ديجانك ودنك ديب قلابته إن حدرتن الحمد لله ديجانك واحد بدن بفهمي وقاعدين خائمين تنخيانات أي وضان يوم ماركين إن دين داود شعب صومالي كودان وقاعدين إلا مي هذا بديارويهن مرك شعب صوماليات يدبلون كملجاركا waxaan ugu baaqayaa inay dadaalkooda ay si laabaan ay ku samraan waxaan aaminsanahay in allaale ninkii oo maarkino dawladda ka hor imaadana ninkii dawladda laga dilay inuu ahlu janno yahay baan aaminsanahay biidinillaahi alkariim oo shahiid inuu yahay maxaa yeelay al-shabaab waa niman maarkino duulaan ku ah dadka iyo dalkaba oo ay rabaan kaligood inay wadanka ku noolaadaan oo dad kale inaan la arkin bay rabaan wadanka waxay u horseedeen ajaanib inay soo geliyaan dad wadankooda dambi ka soo galay oo ka soo cararay wanted ku ah inay wadanka keenaan bay go'aankooda u yahay saas daraadeed in laga hortago ayaa maxalliye diyaar u nahay